hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa ka qayb galay kulan ay xilka kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gudoomiyihii hore ee xisbiga mucaaridka wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin Xayd ayaa ugu horreyn baaqaasi ka hadlay soo dhaweeyay xilka qaadista lagu sameeyay waxaana si cad u tilmaamay inuu hagarlaan ula shaqeyn doono mas'uulkan cusub. waxay ku saabsan tahay xil wareejin aan gudoomiyihii gobolka ku wareejin doono walaalkay Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo wada garanaysaan oo ahaa gudoomiyihii degmada Dhoqoshay muddo yar oo kooban oo 3 gudahoodana xisbiga ka mid ahaa. halkan saaka waxaan ka cadeynayaa in xisbiga uu wadani uu yahay xisbi la wada leeyahay faqay waana ku raacay waa astaan lagu yaqaano xisbiga wadani kolba halka ay dantiisu ku jirto in uu u dhaqaaqo waan la shaqeyn doonaa ilaa iyo maalinta ay doorashadu dhamaanayso mar qura fara kala qaadmayo geed kasta iyo goob walba iyo guri kastana waan la tagayaa. gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob ayaa bulshada reer Togdheer ugu baaqay inay codkooda ugu hiliyaan xisbiga wadani si loo badbaadiyo dalka. mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ana musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan إن شاء الله وقوليسن دونا عبد الرحمن محمد عبد الله عروي مجاعبي إن النقطة قدوميها قبل كتقدر حسب جواتني قال كحسين كأنه شاقي حسب جوا حنقول من يتصمي تدس شعل تدس تونية تدس تناسلية طبعا ليا بيصيدا يعني حسب جود وتشعليين أيانو قومي حسبي كل مية سد حياة بينا كم غناب عن كرئيس مشاهد أحمد عمر حاج عبد الله حمرتي وكم من مسؤولين تسرسل حسبي ودنا هي الشقي إنه حسبي ودنا يا حسبي اللي ودنا هي بينا وصاحب كدوب كل سيال بقول يشيل استيت كمان سبنا الله يدوب لابد نتكلم ما يرينا حرضها ورايا نسكب برنا وأنا ما كوا من كراعة وكذا ساعة كراع قبل كتقدر أنت سندين سياسة يدك الشقي الواحد دي الشقي يا كودهان magaalada Togdheer gobolka Togdheer magaalada Burco waxaanu maanta ilaahay nagu asturay waayeelkeedii wax garadkeedina nagala shaqeeyay midnimadeeda isku duubnaanteeda iyo wadarteeda. Munir Axmed Cigaal ayaa dhankiisa tilmaamay xisbiga wadani yahay xisbiga rajada iyo mustaqbalka Soomaaliland. gudoomiyaha cusub oo runtii aan aad iyo aad u qaaliya soo shaqeeyay gudoomiyihii hore degmada Dhoqoshay waxa kale oo sii socotinay gudoomiye Xuseen Kaahin oo isaguna runtii si sharaf leh u shaqeeyay oo ni degan ahaa macallin wanaagsan ahaa aad baa labadaba hambalyeynaya ka ay ku doorteen taasna waxa keentay siyaasadda gurracan ee kala qoqobka ah ee kala qaybinta ah ee xisbiga kulmiye uu ku dhaqmayay. hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa dhaliilo xooggan u jeediyay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadani ayaa halkaasi ka cadeeyay in Ibrahim Yuusuf Tiiriye Jirde loo magacaabay madaxa ololaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer. waxaan halkan runtii saaka u joognaa sida hore loo sheegay gudoomiyihii ka soo shaqeeyay halkan ee soo aasaasay ee guushan aanu maanta ugu nimiye hararaha la qabanay dhaliyay inaanu saaka xilka u kala wareejino sidoo kale barbarkaygan labaadna waxa taagan Jirde oo garanaysaana maareeyo wakaalada biyaha oo Ibrahim Yuusuf Tiiriye oo isna aanu magacawnay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka ee campaign-ka marka waxa weeye labada gudoomiye ka gobolka iyo ka campaign-ku waxay iska barbar shaqeyn doonaan way wada shaqeyn doonaan gacmo is qabsan doonaan guusha runtii aan saakalkan u taaganay waxa uu ah fulki u ah oo dhaliyay Xuseen Kaahin oo markii horena qofkii loogu yimi ee soo shaqeeyay ee shaqadan qabtay markii dambana markii rag cusub yimi oo kaalintii inay la qabtaan iyo xoog cusub oo firfircoon soo dhaweeyay kuna taliyay oo ogolaaday oo ku taliyay inaan tilmaamo kulmiye markuu ku guul daraystay kasbashada iyo hanashada shacabka ayuu wuxuu adeegsanayaa inuu ama caburiyo ama laaluusho ama si qaldan u isticmaalo awoodda dawladnimo isticmaalo kulmiye. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah xilka loo kala wareegay mas'uulkan cusub loo soo magacaabay iyo mas'uulkii hore xilkaasi hayay Axmed Jaamac Xajadan Axmed Digiro Muqbaayad telefishinka caalamiga Soomaaliland TV Burco.